السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا إذن سلام يا خيارتا دمانتين ملكس الدنيا كاغن نوشيهين كنا سو دوادا channel كأم مسبل إن ما أنتم إذن ونا عبيتان آد ومهمة ونا فائدة بدن أولها جرك بين آدمك وحنا كسمين دونا سد حبة أو قانشيرة أما كيوكامبرة قبل أما جو سنشبيلة go-aasi weyn halkaasi yaallo ma isticmaali doono insha allahu tacaala waxaan isticmaali doonaa kan halkaani aad ka arkaysaan iyaragan soo fiiqan waxaan kaloo ku miiri doonaa markaan soo shiidna ka bacdi laba xabo oo lindhanaan ah lindhanaad kuma shiidi doono insha allahu tacaala waan ku miiri doonaa oo waxaan ka rabnaa micnaha dhadhan oo sida lemonade-ka ah in uu halkaasi ka soo baxo waxaan kaloo ku dari doonaa markaan soo shiidna ka bacdi half cup ama koob halfkiisa oo sokor ah insha allahu tacaala laba galaas oo biyo ana waan ku shiidi doonaa insha allah haddii aad rabto inaad macnaha biilaan shiidana waad samayn kartaa insha allahu tacaala waa haddii aad mashiinta loogu talagalay aad haysatid annaa markaan biyo aanan ku shiidaynin waxaan isticmaalnaa mashiintaasi ayaan isticmaalnaa oo waxaa markaas ka soo baxayo laba koob oo cabitaan ah waa marka aniga iyo xaaskaygaan iskugu talagalnay labada koob oo keliya laakiin maadaama caruurta dhan aniga iyo macna caruurteena dhammaan aan isticmaalayna insha allahu tacaala waxaan ku shiidi doonaa bahashaas ayaan ku shiidi doonaa maadaama biyo aan ku darayna insha allahu tacaala waxaan rabaa hal mar inaan macnaha isdul taago faa'iidada uu leeyahay qaanjeerka ama cucumberka iyo faa'iidada uu sanjabiilka leeyahay ayaan ka hadli doonaa insha allahu tacaala in yaroo kooban waxaad ogtahay caabitaankani ma ahan mid macnaha warshad soo martay ma ahan oo chemical iyo waxyaalo badan ku jira ma ahan waa mid aad gacantaada ku shiidanayso waa mid fresh ah waana wax organic ah fruitkaada arkaysa ama qudaartaada arkaysa waa organic waa wax si dabiici u baxay waaye insha allahu tacaala waana waxyaalaha ugu fiican jirka bani aadamka waxtarna u leh caafimaadna u leh faa'iidada markaan sanjabiilka haddii aan ka hadlo waxay macnaha waxyaalaha sanjabiilka uu faa'iido u leeyahay waxay tahay miisaanka ayaa lagu lumiyaa miisaankaaga haddii aad doonayso inaad hoos u dhigto oo miisaankaada la dagaalanto waxaad isticmaalaysaa sanjabiil macnaha sida loogu talagalay ayaadan u isticmaalaysaa insha allahu tacaala waxaan idin xasuusinayaa shay kasta ee caalamka yaalla ee la isticmaalo wuxuu leeyahay faa'iido iyo khasaare intaba uu keenaya tusaale markaan ka soo qaadno haddii daawo inuu takhtar kuu soo qoro daawada inta u qaado lagu yiraahday in ka badan aad qaadatid caafimaad darray keenaysaa xanuunay kugu keenaysaa daawada ay ahayd haddii lagu yiraahdo saddexda jeer saddexda maalin ama saddexda waqti min laba u laq haddii aad min saddex u laqdid dee adigaa markaan jirkaada dhibaato u keentay oo faa'iido darro halkaasay ka imaanaysa caafimaad kama imaanayo haddii haddana aad ka yarayso tayada lagugu talagala ama inta ka qaada lagu yiraahdo daawadaasi oo laba xaba cunaa lagu yiraahday saddexda waqti min laba ah min halaad cuntay faa'iido kuma lahaanayso cudurkaasna kama bogsoonaysid wixii lagugu talagalay in macnaha lagu daaweeyo kama bogsoonaysid waayo tankii loogu talagalay in cudurkaasi ama jeermiskaasi uu dilo daawada dili lahayd waad ka yaraysay markaan shay kastoo la isticmaalayna waa noocaasi sanjabiilka haddii aad iska badiso dhibaato uu kuu keeni karaa haddii markaan intii loogu talagalay aad qaadatana faa'iido fara badan ayuu leeyahay markaa saas ayaan rabaa dadka inaan ka dhaadhiciyo insha allahu tacaala markaan miisaanka ayuu lumiyaan iraa markii koowaad oo miisaanka haddaad doonaysa inaad yaraysid waad ku yarayn kartaa adigoo markaasi toos ah u cabayo ama u isticmaalaya sanjabiilka waxyaalaha kale ay uu sameeyaan waxaa ka mid ah waa xanuun baabiya loo isticmaalaa oo wuxuu la dagaalamaa madax xanuun hadduu ka haya xataa waad cabi kartaa oo mataqaana madax xanuunkaasi uu kaa dhacaya insha allahu tacaala dadka mataqaana ay qaba waxa rheumatismka la yiraahdo ama arthritis-ka la yiraahdo xubnaha dadka xanuuna oo kaleeto wuu u roon yahay mataqaana wuu la dagaalamaa wuxuu kaloo la dagaalamaa inflammationka ama waxyaalaha bararka jirkaada ku yimaado kaleeto haddii xubnaha ay ku bararaan ama gacmaha ay ku bararaan ama lugaha ay ku bararaan kaleeto haddii aad sanjabiilka isticmaasho wuu kaa dhacaya bararkaas ayuu la dagaalamayaa waxyaalaha kale uu muhiimadda kale uu leeyahay waxay tahay wuxuu la dagaalamaa kansarka hadday noqon lahayd kansarka jirka ku dhaco hadday noqon lahayd kansarka ku dhaco caloosha ku dhaco hadday noqon adig any kind of cancer ayuu macnaha la dagaalamaya oo micnaheeda hadda macnaha idiima lahi wuu daaweeyaa ma ahan laakiin wax weyn ayuu ka taraya mataqaana waxtar fara badan ayuu leeyahay laakiin micnaheeda ma ahan wuu daaweeyaa oo kansarka lagu daaweeyaa waa daawadii loogu talagalay kansarka idiima lahi taasna macnaha yaana loo qaadanin laakiin waxtar ayuu leeyahay wuuna yareeyaa macnaha kansarka ama faafitaanka kansarka ayuu yareeyaa ama wax ka qabtaa weeyaan insha allahu tacaala takhtarna mihiisa ha loola socdo midda kale wuxuu la dagaalamaa ama uu yareeyaa waxa la yirahdaa samboorka hadduu samboor ku hayo haddii aad isticmaasho sanjabiilka mataqaana waad ka ronaanaysaa insha allahu tacaala ama mataqaana wuu kaa naaqusinayaa waxyaalaha kale
u roon yahay waxaa ka mid ah dad waxaa jira mataqaanaa afkooda uu soo shiiro ama uu soo uro ama neeftooda ay urto ama ay shiirto kaleeto haddii aad sanjibiilka isticmaasho taa nafteeda mataqaanaa qayb weyn ayuu ka qaadanayaa in urkaasi aad iyo aad uu hoos u dhigo insha allahu tacaala haddii markaan aad iska badiso waxyaalaha uu leeyahay waxaa ka mid ah intaanan u gelin taasi waxtarkiisa anoo sii wado waad ogtihiin gabdhaha markay walacaan subaxii kaleeto aroortii waxay la soo kacaan ama la soo toosaan lalaba fara badan sanjibiilka haddii aad isticmaasho ama gabadha sanjibiil ay isticmaasho ama wax uun sanjibiil ka samaysan ama cabitaan sanjibiil ka samaysan haddii ay isticmaasho waxay mataqaanaa hoos u dhigayaa lalabada faraha badan ee gabadhaasi ay dareemi lahayd subaxi markay soo toosto xitaa waxaad ogtihiin gabdhaha markay takhaatiirta la kulmaan ee lalabana ay sheeganayaan walac ay yihiin takhaatiirta waxay ku waaniyaan inay isticmaalaan waxyaalo sanjibiil ku jiro hadday noqon lahayd nanac laga sameeyey hadday noqon lahayd cabitaankiisa taasna macnaha waxay tahay in uu yareeyo ama hoos u dhigo labada faraha badan ee gabadha ay dareemayso waqtiga ay ku jirto xaaladda walaca ama 3 bilood ugu horeeya ee uurka markay leedahay markaan waxyaalaha markaan uu keeni karo ama dhibaatada uu keeni karo marka haddii laba ama hal aan ka taabto waxaa ka mid ah wuxuu keenaa haddaad iska badiso wuxuu keenayaa laabjeex fara badan markaan in la iska badiyo waa laga wanaagsan markaan in yar oo macnaha qiyaas ah inaad ka qaadatid ayaa muhiim ah waxaa kaloo macnaha uu keeni karaa ubac xanuun haddii aad iska badiso ubacdo ayaa mataqaanaa dareem xanuun aad ka dareemaysaa ama ubac majiir ayaa dareemaysaa haddii aad iska badiso marka intaas ayaan macnaha kusoo koobaya xagga sanjibiilka insha allahu tacaala faa'iidada uu leeyahay haddii aan u imaado qaanjeerka ama bahalka la yiraahdo cucumberka faa'iidada uu macnaha u leeyahay waxay tahay waxaa ka mid ah wadnaha ayuu xoojiyaa dee wadna xanuun aa qabto kaleeto waxaan macnaha ku boorinaya qofka inuu isticmaalo idinman leeyahay haddana waa lagu daaweeyaa wadna xanuunka lagu daaweeyaa ma ahan laakiin wuu yareeyaa ama qatarta qofka wadna xanuunka ugu jiro ayuu macnaha uu yareynayaa insha allahu tacaala wuxuuna furaa xididada dhiigga wuxuuna mataqaanaa isku dheelitiraa dhiigga biniaadamka ama dhiig karka ayuu yareeyaa waxaa kaloo mataqaanaa cucumberka uu maadaama ay ku yar tahay dufanta iyo sokorta ama macaanka uu ku yar yahay waxay dadka badanaa u isticmaalaan in lagu lumiyo ama lagu yareeyo miisaanka qofka siwa haweenka kaleeto markii miisaanka ay iska yareynayaan waxaan ku boorin lahaa inay cabaan ama ay ka samaystaan fruit ama ay jarjartaan oo sidiisa ay ku cunaan ama cabitaan ay ka samaystaan insha allahu tacaala halkaas ayaanu kusoo koobaya waan soo fiiqi doonaa waan lasoo jarjari doonaa insha allahu tacaala waxaad ogtihiin caruurta kaleeto ma isticmaali karaan way isticmaali karaan cabitaanka noocaani ah oo sanjibiilka uu ku jiro sanjibiilka ilmaha waa mataqaanaa way isticmaali karaan laakiin haddana waad ogtihiin ilmaha kamarar qaar kaama ogolaanayaan wax mataqaanaa kuleel uu ku jiro inay isticmaalaan ama ay cabaan waxaa kaloo ogtihiin badanaa takhaatiirta ma ogola ilmaha in la siiyo waa cunug markuu sanad iyo markuu ka yar yahay sanad iyo wixii ka yar lama siiyo malab waad ogtihiin waayo dheefshiidkiisa ma xamili karo sidoo kale sanjibiilka oo kaleeto lama siiyo waxyaalaha sanjibiilka ugu jira lama siiyo markuu sanad uu ka yar yahay laakiin marcan cunug markuu sanad ka weynaado malab waa la siin karaa sanjibiilkan waa la siin karaa hadduu markaas cunug uu kaa qaadanaya weyn waayo macnaha sanjibiilku wuxuu yareeyaa xitaa qufaca ama hargabka iyo u roon yahay waad ogtihiin markan bal insha allahu tacaala halkaas ayaan kusoo koobaya waxaana idinku wareejin doonaa xaajiyadda iyada ayaa halkaasi kasii wada doonto assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waxaan filayaa inaad ka faa'iidaysan doontaan السلام عليكم أصحابتي وادين سلامي ما شاء الله كسو دوادا ومسبل كوكين شانل إن شاء الله كاسبوحوها حاجي جيجا ما شاء الله وحان هور وشيغ لها واسا هور وشيغي مركا أنينا وادين دمسترايا إن شاء الله كليو عن حاجي جيجا ما شاء الله my best friend my husband and the father of my kids ilmihayga aabahood maasha allah marka waxaan rabaa inaan idin tuso cucumberkii waa soo jarjarnay waxaa dhex yeelay sanjibiilkii yar ahaa oo fiiqnaa waxaa kaloo soo raaciyay oon saa'id anaga qoysaan u jecelnahay mintiga wuu carfiyaa un maasha allah anaga saa'id aan u jecelnahay saddexdaasaan rabaa inaan isku soo shiido waxaa kaloo geeski ii yaalo oo markaan waxaa isku soo shiida aan rabaa inaan gadaal ugu daro sokortii oo half koobka ahayd iyo 2 xabo liinta insha allah waan soo shiidayaa mashiinta qayladeedan diidayaa marka waa soo shiidayaa waa idin tusayaa la socod wanaagsan
asxaabteeda qaaliga, cabitaankan waxaa la cabi karaa waqtiga quraacda kadib iyo waqtiga cashada kadib insha Allah. sidaas ayaa ogaanaysiin. asxaabay, waa kaasa waan soo miiray. miiraha aan isticmaalana waa kan, waan soo miiray. dhinacaas waxaa ku jira sanjabiilkii, cucumberkii oon soo shiidoon soo miiray. intana waxaa iigu jiro liin dhanaantii gooniya u miiray, sokortiyan ku qasay, sirabaan ka dhigay, ma fahanta. waatanaa maasha Allah. marka inta waxaa ii yaala kanna waa gooni, asagana waxaa waaye qolofkii kore oo cucumberka. aniga waxaa uma tuuro cucumberkan. waxaa la dhigayaa cawadoo kale whip cream, kan heavy whip creamkaas aan la dhigayaa cream camal ka suubsana insha Allah. kanna waxaan ku daraa kan ka miire oo sanjabiilka oo ku jirana waxaan ka dhigaa ma tuuray, asagana scrub malabaan ku darsanayaa korka. scrub ugu dhiganaysaa gacmaha iyo lugahoo kale. marka waa kaasa maasha Allah. ayagana faa'iidadaas goonigay leeyihiin, waxba ma tuuri rabo intaa maanta shiiday. waa kana waa soo shiiday biyahan. haddaanu ku darayaa liintii sokortii insha Allah. la socodwan liintii iyo sokortii aan gooni soo hagaajiyaan ku kor darayaa. waa kaasa sirab waaye. asxaabteedii waa kaasa waan soo miiray maasha Allah. waa diyaar. waxaan kor ka gelin waa mint caleentiisa maasha Allah. waxaa kaloo idin raaci rabaa, waxaa fiican wax caafimaadka mar walba oo fiican in lagu dadaalo insha Allah. anigana markasta waxaan aan meesha soo gelinayo channelkaneeto wax caafimaadka u fiican oo waxtar leh. ma idinkula talinayo junk food ama cuntooyinka chemicalka uu ku badan yahay. saa iila socotiin aad ayaa idinka mahad celinayaa insha Allah. ka raali noqda buubuuqa maqlaysin, waa caruurteeda. ilaahay ha barakeeyo maasha Allah. marka waxaa kale oo idin raacinayaa dhiirigelin waayo maasajada quruxda badan mar walba ii soo dirtiin. kuwa hore noola joogay waa ku mahadsantihiin maasha Allah. waqtigiina qaaskoona siiseen. kuwa hadda imaadena waxaan leeyahay soo dhawaada maasha Allah, welcome. waxaan igu caawisin oo idinka codsanaya dadkiina hore u joogay like share insha Allah. dadkiina cusubna insha Allah waxaad igu caawisiin like, subscribe, share insha Allah iyo comment. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.